xildhibaan Axmed Muuse Obsiye Axmed Gacan oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay maamul goboleedka Puntland iyo madaxda cusub ee halkaas qabsaday iyo siyaasadooda ku aadan dhinaca Soomaaliland iyo sidoo kale saameynta amni ee ay ku yeelan karaan dawladda Soomaaliland. xildhibaan Axmed Muuse Obsiye Axmed Gacan oo arrinkaasi iyo arrimo kale ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa. bariga waxay ka weydiiseen bari waxba inaga soo fool yeelan kara sababta ay tahay labada nin la doortay nin baa ahaan jiray ciidanka sanam ciidanka Soomaaliland ahaana markii dambana noqday qoladii ku dagaalamaysay daaroodiyada kalshaale markuu yimi wareegay nin baa ahaa waa wasiir ku xigeenka markaad arrintaas dhibaatadeeda ilaa caarana wali looma yeelin lamana meeleen caara ninkan imaka qabsaday Puntland waa nin cadadag ninkii hore uu ka adadag waanu ka rakaabroyn kaasuna waa nin yaqaana Soomaaliland oo u dhashay halka dhibaatadeeda ka soo socota saddex xaaladood uga soo socota marka hore ciidanku ahaa jiro waa nin wax yaqaana tiknikana wuu haystaa labadii beelood ee dagaalamay laascaanood ku dagaalamayna ciidamadoodii lama qaramay 20 tiknikana way haystaa isaaquna wuu kala furan qoladan caloosha dhexe way kala furanta isma haysato waa beelo wixii aynu soo dagaalamayna waynu garan weyna waxa alla waxay ahaayeen ma inuu garan xageenu baynu meesha ku leeyna wax kale inuu ka dagaalanay ma jirto laba nin oo saraakiil oo SNM ka soo hadhayna ninna waa madaxweyne ninna waa wasiir daaqili wanimankii maanta dadka heshiisiin la taasuna meesha way ka maqan Puntlandna waa tii la isugu yimid shil lagu wada heshiiyay Soomaaliyana soo ka hadhimayso Soomaaliland waladiina dhalinyarada waxba uruma haysaane Soomaaliya ka hadhimayso Soomaaliland marnaba ka hadhimayso dagaal iyo dood iyo wax kastaba inay ku soo qabataa doonayso sababtii baynu noqonay milix macaan oo meesha isdhiibtay waxna meel dhiganin ilaa maantana kama inaan tabaabashaysan wax koonfur inaga yaalo aynu ugu kaxnaana ma jiraan tuhunkan la isku tuhmayaana waa beeno reerka lagu tuhmayaa maanta koonfur ugu liita madaxweynaha cid kaga dhadhoway maanta ma jirto hadduu isagu soo dhaweynayo hadduu fogeynayaba cid kaga dhadhoway ma jirto cid maanta Soomaaliland oo halkaa dabada ku haysaa ma jirto laakiin sidii la inoo qaban lahaa waa la wadaa isku mana xidhnin ama dagaal baa la inagu qabanaya ama inaga gudaheena inta la kala fadhiyo la burburiyo yaa la inagu qabanaya wixii dhalinyaro ahaana tagaba xamar bay maanta ka buuxaa wax jabhad loo qorto wax ciidan lagu beeriyo wax shaqo kale la siiyo xaraka markay dhalinyaradii weyday halkaas ay u yaacdo taasina waa kelmad baro marka Puntland maanta hadday dhisanto inaga mashaakil bayna kaga soo kulmay laascaanoodna inama ogola xoog baynu ku haynaa laascaanood laakiin inama ogola marka ina bixisaa ka laba xaalad la gudboon labada xaalad waxa weeye horta isaaq inuu heshiisiyo waxa ku heshiisiin laagu keeno way halkaasna ciidan yar buu geeyay tukara marka dhaafto ila garoowe meeshiisa waa banaan wana qanaar dalka meel ciidan ku dhufays ku gaajir mayso hadii tafarraq ba halka loo dhaafo tukarraq waa dhufays ka hadii ama inagu ayna xagga uga baxna ama xaggan layno ka soo saarana layna arki maayo marka waxaan ku soo koobaya halka waxayna kaga soo socdo Soomaaliyana inaga ma hadhina Soomaaliland way daba socotaa nimcada halkan ay taala ee wax indhale oo inoo jahayeen laan teenan jaamale haday teenu jahatay baynu malayn leh teenana ma waqooyi u socotaa ma koonfur bay u socotaa ma halkeeday ku ingegsanaysaa
ma garanayno habeenkaa caawa waxaan ku faaliya Soomaaliland meesha u socoto ma garanayo raggii u kiciraana waa idinka annaga idinka horeeyna idin jahayn kari weyne taariikh waanu idinku jahayn laakiin maamulkeeni maanta meel leeynu jahayn marka runta laga hadlayo isagay maanta la gudboon tahay inuu ka gaashaan dhigto halka saddex namarna uu sameeyo halkan waa ogtiin samaroon waxay doonaysaa saami qaybsi xaq way u leedahay dhulbahanta wuxuu leeyahay tiicali qalab hal rumeeyo distoorkana naloo furo waayahay markaad burcod hargeysa galbeedkeeda ka bilowday ilaa Ceerigaamana dadka ku nool badankiisu waxbuu saluugaya waa majoritigiis qaarna wax saluugayna way jiraan laakiin majority ahaan waxbay saluugayaan inta inuu haduu maanta heshiisiyo oo u jaheeyo Soomaaliland waa naajix hadiise inta uu jahayn waayo heshiisiin kari waayo Soomaaliland anigu waxaan leeyahay Ilaahay inuu naxariisto